galabtii jimcaha anagoo gurigeena joogno ayaa waxaa noo yimaaday niman laba baabuur horneeda wataan oo indhaha u duwan yihiin jimcihii lasoo dhaafay haye horneeda ayay wateen dabajaxyii sabanaha lagu ilaalinayay way soo degeen aabihiina awayna dhaheen waa garta aabba waa joogaa aan dhahanay maxaa daran aabbaan u baahanay dhaheen guriga ayay la galeen qoryihii iyo wixii ay wateen aabbaa soo baxay maxaa daran waxay dhaheen arrin muhiimaan kala hadlaynaa waa garta maxaa rabtiin oo dhahay see waa ilmaha maxaa orga gashanaydaan haye waxay dhaheen waxaan kaa rabnaa arrin muhiima adeer maxay tahay yidhi haye waxaan u baahanay dhaheen gabadhaada Shukri in la siiyo amiirkeena haye war wuxuu yidhi gabadheeda ma u baahan tahan haa gabadha haddaa u baahan tahan niman gabar soo doonaayo isku soo ekaysiiyo niman la garanayo waalidiintooda wata ha ii yimaadaan gabadheeda haddaa u baahan tahan haye niman indhuhu xiran yihiin oo sabanihii dabajaxay wato gabar siyaan usii maqaano waaya aabba way handideen waxay dhaheen waxaas ma jiro caado dhaqameedka hore waayo qabiil iyo odayaal iyo wax in la raadso mujaahidiinta nin kamid ahaa kaasoo doontay oo amiir sare ah waa inaad gabadhaada siisaa oo ku sharaftaa haye ninka magaciisa ma idiin sheegeen ninka nin cadaan oo noqon doonaa haye annaga nin Soomaaliya marka hore u haysanay oo gabadha la heshiiyey haye marka aabba maskaxdayda waxay waayeen ii soo noqday Brito waa garta sidii nooga tageen gabadhii imaaday iskoolka imaaday haye gabadhii waxaa dhahaa nin aad ii soo gartay ma jiro oo ku jiran qolooyinkan afka duwan haye waxay tiri maya tiri aniga mana shukaansado gabar wax barataan ahay oo hadda dugsi sare dhammayrato oo jaamacad rabto inay gasho nina uma soo jeeda aabba nina kuma soo diranay tiri waa garta sidaas markay dhacday waxaa ogaanay nimankan inay xoog wataan oo gabadha inay naga xoogaan rabaan haye gabadhi waxaan dhahanay habarar oo deganeed xaafadahaas dhankaas xamarweyne aan dhahanay aada u carar haye dhankaas usoo carartay nimanka waa nagu soo laabteen waa garta aaway dhaheen adeer wataana balleeday goormay marka idinku soo laabanayaan sabdigii haye waxaa la yidhi gabadhii way carartay wayna iska tagtay waxay aaday xaafadaha beriteeda waa garta sidaas markay dhaheen aabbay ay handideen gaarigay ku qaateen waxay dhaheen islaamkaa qiyamto gabadhaad aa u diiday waa garta aabba waa naga watay waa naga afduubteen haye goorma waayo marka isla sabtigii miya isla sabdigii waaye haye sidii naga wateen annagu waa ka daba cararnay waa ka daba yaacnay qorya nagu soo taagtaageen markii dambe adagu meeshuu ku xiran yaha ogaano waa ugu tagnay marka xaggee laga watay xaggee lagu xiray Tareedisho ayaa laga watay meesha lagu xirana waa xaggee meel ayaga durduura ay degan yihiin oo tindayna ugu xiran yihiin aan la geeyey oo xaggee ku taallaa waa durduurka Tareedisho xaggeeda marka wax aad istaqaaneen ma ku jireen raggaas oo aad garanayseen ragga gadaalaan ka gara doonaa ninka oo afhayeenka u ahaa ninka cadaanka oo turjubaanka ahaa ciidanka wataya gadaal ka gara doonaa haye iiga wad marka ka daba cararteen oo meesha ay ku xiran aad ogaateen maxaa dhacay kadib waa u tagnay aabaheen noo soo dayan dhahna maxaa nagu haystaan maxaa idinka hadlayna soo walaalayaal islaam nitaan maxaa aabaheen ka rabtaan waa garta waxay dhaheen aabihiin waa murtid islaamka qiyaamay oona dhagareeyey haye marka wasaf dhahay hooyo waxay tiri ninkii afhayeenka ahaayo indhaha u duubnaayo waxay tiri waxa u baahan tahay noo sheega waa garta amiirka in gabadha la siiyo oo keliyaan u baahannahay waana u banaan tahay hala siiyo haye marka amiirku nin iyaga la socda miyaa markaas mise waa nin ka maqan nin ayaga markaasi ka maqan oo ayaga oo soo dirsado waayo waa garta waayahay gabadhii waa idin siinaynaa odaga ha naga qalanina tahe haye gabadhii yaa loo sheegay waxaa la yidhi odaga waa la wato qoortaana laga goyra waayo waana murtidaa ay kusoo eedeeyeen haye gabadhii way soo carartay way timaaday waxay tiri ninkii la isii rabo waan raacayaaye aabaheedaan qoorta laga goynay haye sidii gabadha guri ku imaaday nimankii waa wacna waxaan dhahnay ninka gabadha u rabtaan iyo aabada noo imaada guriga noogu imaada haye ayaga 3 xubneed wato dabajaxyo wataan bay noo yimaadeen indhuhu u xiran yihiin aabba indhaha laga furay markaasaa la yidhi waa kana aabihiin gabadhiina waa loo baahan yahay waa garta waa goormo marka maalinkaasina maalinkii waxaa waaye isniinta ahayd haye qisadaas markay dhacday aabba wuxuu yidhi waayahay ninkii gabadha u rabteen
hal intusi aan hadhiita asaga ugu soo raacday gabadheeda wixii gaaro haye waxay dhaheen waxa sama jirtaan waxa lagu tusaayo ma jiraan amiirka oo ka soo doontay waayo amiirkii gabadhi iyo amiirkii waa inaan isku arko isku meeliyaa weeyay waa gartay amiirkii ay yimaadeen nin wuxuu ahaa dhar madow wato oo gacmaha iskaashooyin ugu jiraan indhaha u duuban timo badan waa gartay ninkii markii la arkay nin wuxuu nooga qaaday indhaha ka fura muxuu idin la ekaaday nin cadaan ah oo ahaa Pakistan inuu yahay umaleyn haye gurigiinu yimaade gurigeena 3 xarmeed ku yimaadeen goormo markaas imaanaha marka isla isniintii miya mise waa maalmihii ka dambeeyay waa isla isniinta markii gabadhii aan keeno aabbayna noo keena aan ka codsanay inay yimaadeen amiirkii ayagoo wadaan waa gartay marka amiirkii indhaha laga furo markay dhahaan waa diideed asagana Carabi ku hadlayay haye wuxuu yiri waayahay gabadhii ninka ururtan iyo udigiisa iyo qolada oo yahay u baahanahay waa gartay ninka waxa dhahay nin muhaajir ah haye oo Afghanistan ka yimaaday haye mana udigiisana ma la furaayo waa xaraan waa gartay gabadha islaamka soo doontay muslimin waa gartay nin cadaan aniga gabadheeda meelaan u raacaan aqoon siinayo abada hadana waa gartay markii meeshii hadana xamdiyaadka meeyo waxa la soo baxaan qarofan oo af badan waxay dhaheen qoortan ka goynina muftiga tahay gabadhana waa wadanina aabay sida ku dhahayaan markuu yiri ninka wajigiisa waa in la tusaa nin cadaan inuu markii aan ogaanay maxay ma siinayo nin cadaan gabadheeda waa Soomaali aan garanayo meelaan u raacaan gabadha siinaya haye saas markay dhacay waxay dhaheen odagii hadana garbadoog waxay maramada madax u galsheen gabadhina soo baxshay waa gartay saas markay dhacday habar oo soo baxday ninkii hadana oo cadaanka u turjinayay la hadashay tii gabadha wati odaga ha iga dhigina haye waayahay li hadana siidayo dhahay yarkiya xoogay turjubaanka cadaanku ahaa yiri gabadhan nasiib odagana reebo waaya odaygu wuxuu gabadha soo lagu mihrimayo culimadu wax ma la doonayo haye waxaas ma jiraan dheen guurku waa niyo gabadhana saasay ku miisan tahay hadday amiirkii gabadhana israacaan waa laga qabaa gabadha islaamka ka wati haye qisadaas markay dhacday annaga hooyo aabay ay wax u sheegtay tiri warqoortina laga jira annaga nimanka naga naximaayaan wana qalayaan gabadheena gabadhii sidii ku wateen marka gabadhiina waxay tiri aabay iyo nimankan ku guuray in si aan uga soo dhuntay oo ka soo dhoomaayay waa raacaya waa gartay gabadhii sidii nooga wateen haye markii gabadhii guri ay geysteen meeshii ay u wateen waxaa gabadha taleefankeedii aan wacnay ninkii aan naga qabta Carabiga ahaa habeenkii labaad waa gartay waan ugu danshay waana la hadli waayay gabadhii meelaan kala xiriirnaa weynay markii dambe gabadha taleefankeeda waa la danshay waxaa wacnay ninkii turjubaanka ahay waa gartay ninka turjubaanka ahay dhahna gabadheena inaan la hadalno la xiriirnaa rabnaa maxaa ku dhacay haye gabadhiina waxa waaye amarka islaamka jabisay ninkii muhaajirka ahaayo amiirkeena la siiyay diiday waa gartay markaasna waa qoorta laga jaro yiri waa muslimiinta waa dhimatay gabadha samir Allah ka siiyay waa gartay annaga meesha markii aabadii karo qabay arintaas markii ku dhacday aabe waa habeenkii dhan waa la hayay markii dambe waa naf baxay goormo markaa naf baxay aabe habeenkii talaadada waa gartay habeenkii talaadada naf baxay aabe annagii gabadha meedkeeda meelaan u raacna waa weynay iyo meelaa ku qasheen iyo gabadhii nafsiga aan dugana markaa dhahnana waxuu dhahay ma jiraan waxaas marka ilaa haddeer ma kala xaqiiqsateen gabadhii inay nooshahay iyo in la dilay oo sida laydin sheegayo la qalay kulli annaga waxaa noo cad inay gabadha qaleen haddii ay diida ninka cadaanka ay siiyeen maxay ku diidaa layidhi gabadha marka gabadhii waxay soo dirtay telephone message ay soo qortay waa gartay waxay tiri ninkan xaaraanu rabaa inuu igu galmoodo haye mana ogolaan doono waana kasoo dhuumanayaa aabe samar waa gartay anigana ma ogolaan doono sidii markii gabadha ugu soo horjeeday inuu u galmoodo inuu sidaas lagu gooracayaan u malaynayaa marka hadda muddo asbuuc ku dhawaad weysantiin gabadhiinu sidaas ay ku maqan tahay aabana sidaas darteed ayuu naxdinta arrinta uu ka naxo u dhintay aaba dikaro qaba sidii u dhintay aaba waa soo duugnay hooyo iyo gabdhihii kale iyo ilmihii yararka ahayna waa faseen waxay dhaheen arrintan yaa la ogaanin ay dhaheen haddii arrintan aan maqalno adinkaa idin dhamaystirayna ay dhaheen